ugu horeysa waxaan salaamayaa dadweynaha reer Puntland gaar ahaan magaalada Garowe dadweynaha nagu soo dhaweeyay oo sharafta badan oo laamaha kala gedisan oo dawladda iyo dadweynaha haweenka dhalinyarada isugu jira aad iyo aad baan soo dhawaarinta ay nagu soo dhaweeyaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waxaan rabaa in yar inaan idinka warbixin idinka siiyo anigu waxaan dalka dibadiisa ugu maqnaa shaqo qaran baan ugu maqnaa muddo weeyga baan maqnaa Nairobi baan u gaaray shaqadaasuna si fiican bay noogu soo dhamaatay oo maslaxada dalka iyo dadka aan u aadnay taas arintaas haddaan ka baxo dadweynaha reer Puntland meel kasta ay joogaan waxaan ku salaamayaa mar labaad salaanta islaamka waxaana leeyahay laga shaqeeyo midnimada Puntland amnigeeda horumarkeeda jiritaankeeda cid kasta oo Puntland rabta inay qalqal geliso ama inay dib ka shaqeyso ummadda reer Puntland waa inay isku aragti ka noqoto oo ay maartay maslaxadooda iyo jiritaankooda ay cidna ku hadlayn dalka difaaciisa iyo horumarkiisa waa la socotaan oo dalka waxa ka socda horumar badan baa ka socda horumaradaasuna waxay u baahan yihiin amni bay u baahan yihiin iyo nabad bay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin midnimo bay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin isku duubni bay u baahan yihiin waxa hadda socdaana waa wax laga soo wada shaqeeyay oo inforti iyo tabar la geliyay oo dadka reer Puntland soo isku duuban uu tabar geliyay cidii maanta marka iyadu waxaas lagu soo dhintay oo ummadda reer Puntland ay ku dhimatay rabta inay khalkhal geliso ama rabta inay wax kala samayso dadweynaha reer Puntland waxa la rabaa sidii horeyba aad maartay uga midaystaan jireen uga midaysnaataan midnimadana la ilaaliyo wada jirkana la ilaaliyo dawladnimadana la shaqeeyo dawladdatanu waa dawlad Puntland waa dawlad dadku uu leeyahay ma aha dawlad meel kale ka timi dadweynaheedii baa dadweynuhu iyaga laga rabaa inay dawladooda ilaashadaan horumarkana ilaashadaan qofkii isagu dan yara doonaya ama waxaan micnahayn doonayo raba inuu khalkhal ku galiyo dalka hadda waxa la doonayaa in isku aragti laga noqdo qof kasta oo isagu dan khaas ah raadinaya sababta danta caamka ayaa dadka deeqda halkaan hadda waxa fadhiya ama maanta dadkan soo dhaweyn waxa u badnaa dhalinyaro u badnayd dhalinyaro waxa weeye mustaqbalkiina wuxuu ku jiraa inaad amniga ka shaqeysaan mustaqbalkiina wuxuu ku jiraa inaad midnimada ka shaqeysaan mustaqbalkiina wuxuu ku jiraa inaad dhulkiina hagaagsataan mustaqbalkiina wuxuu ku jiraa dawladnimadeena inaad taageerdaan laakiin mustaqbalkiina kuma jiro khalkhal in la geliyo dal iyo dib in laga shaqeeyo qof dan khaas leh meel kasta caalamka waa joogaa qof dan khaas leh waa joogaa laakiin qofka danta khaaska leh waxa ka xoog badan sharciga dadku dhigtay koow iyo midnimada dadka oo maartay baa qofka shakhsiga ka xoog badan laakiinse inaga wixii la inagu yaqaanay waxay ahayd in Soomaaliya kaga fiicnaan mar walba amnigeenu kaga fiicnaan midnimadaynu kaga fiicnaan wada jirkaynu kaga fiicnaan waxa wada qabsigaynu kaga fiicnaan Soomaaliya maanta meesha kaliya oo ilaa iyo 900 kilomitir ama 800 kilomitir dhul isu jira distance ama markii la isku celceliyo 1200 kilomitir dhul maanta la isaga socon karo oo baabuurku intuu dhaqaaqo uusan habeena meel la us istaageen oo dib u saageen Puntland kaliya ka jira dhul waxa jira hal saac kaliya laga socdo maamulaha hal saac kaliya amniga lagu socdaa jira marka nabadaas ilaahayna siiyay ma nabadu inay iska timi nabadu waxay ku timi talo waxay ku timi shaqo waxay ku timi wada jir waxay ku timi maartay dadku ay ka go'an tahay maartay dhulkooda inay hagaagsadaan marka arintan dadka weynaha reer Puntland iyo Soomaaliya waa soo jeedinayo ilaahay ummadda Soomaaliyeedna dhibaatada ha ka saaro kuwa dhibka qaba innagana maartay nabadda iyo khayrkeena haysna ilaahay inoo siyaadiyo innaguna aynu ka shaqeyno gacan la isku siiyo maartay horumarka dalka la isku siiyo qof walbana dhulka sagaale oo aakhirka meesha uu u dhimanayo waa dhulkiisa cid aan dhul lahayn adduunka ma jiro cid walbana dhulkeeda ilaashataa oo ku dhaarata oo ku mitidaasay maartay ugu noolaan lahayd laakiin si qofku hadduu oo meel kale niyada saaro oo dhulkiisa ilaawo oo dhulkiisa meel uga roon yiraahdo waa raadinaya meel uga roon oo helaya ma jiro meel kasta oo kale aad tagtay xataa wax ku heshay nin qaxootiya baata waxa tahay nin laajiya baata xagee ka timi baa lagu leeyahay meel dhulkaaga baa lagu leeyahay maxaa ka soo cayriya baa lagu leeyahay waliba hadda Soomaaliya markii qofka Soomaaliga la yiraahdo jinsiyadaadu maxay tahay Soomaali aad baa lagu sii fiirinaya waana garan ka dhan waxyaalaha soo dhakale wax loo sii fiirinaya labada urur argagixisada sida al-shabaabka oo kale iyo Daesh oo kale iyagu waa laba urur argagixisada caalamiya waxa weeye waxa laga adkaan karaa amal ummadda Soomaaliyeed iyadoo midaysan bay ka adkaan ka dhaa
innaguna haddaynu puntland weligan waynu ka midaysnaan arrintaa waynu ka midaysnayn haddana waynu kasii midaysnaan doonaa in waxa weeye horumarkeena inaga hor istaagana la doonimayo iyadana waxa weeye in maaragtay dhalinyaro aad iyo dadweynow reer puntland ow meel kastoo aad joogtaa arrintaa aad isha ku haysaan oo xaafadihiina aad ilaalisaan oo baabuurta aad wadataan waxaa qaadaysaan aad ogaataan oo guryaha aad leedihin waxaa ku hoyan ayaa ogaataan intaas aynan ku gaari karaynaa horumar iyo maarata inay puntland sii jidho wixii horey looga bartayna looga helo sacaad wasiir waa maxamed soo faysane oo SBC ka tirsan xukuumaddii aad ka mid ahayd dhawaan waa tii baarlamaanku kalsoonida kala laabtay weliba baarlamaanku wuxuu aad u dhaliilayay wasaaradda adigu aad madaxda ka tahay amniga hadda xukuumad baa lasoo dhisaya warar hoose waxay sheegayaan rag aad ka mid tahay wasiirka xanaanada xoolaha uu ka mid yahay cabdijamaal iyo axmed karaash raggaasuu daad ku qaadi doono oo ragga aan soo laabanto marka adigu rajada intee leh adeer waxa weeye anigu horta nin muwaadina baan ahay muwaadinimaan puntland uga shaqeynayo kursi ugama shaqeynayn oo qofkii kursi ku shaqeynayo aan dalka dan kale ka gelin oo kursi doonaya dee qofkaasa waxaas oo kale ka hadla laakiin anigu haddii aan xilka kusoo noqdana dalkaan u shaqeynaya haddaan xilka ka tagana dalkaan u shaqeynaya nin muwaadin oo dalka u dhashay baan anigu